wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdirashiid Magaalo ayaa maanta si rasmi ah xilalkii ugu kala wareejiyay barasaabkii hore ee gobolka Sanaag Axmed Isteber iyo barasaabka cusub ee dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u soo magacaabay mudane Maxamuud Raage Ibrahim. munaasabadda xil wareejinta barasaabka oo ka dhacday Hotel Istanbul ee magaalada Cerigabo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin mudan iyo waliba laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale culimo cuqaal iyo waliba haween. mudan gudoomiye waan kaaga mahadcelinaynaa wada shaqayntii aad nala lahayd waxaan kaloo kaaga mahadcelinaynaa duruufihii iyo dhibtii magaalada iyo xaaladihii gobolkuba ku soo koobsaday aad la jaan qaaday iyo kuwo aad ugu timi kuwo intii aad joogtayba duruufo iyo dantu keentay sidii aad uga dabaalatay ayaan runtii kaaga mahadcelinaynaa. marka waxaan leeyahay barasaabkii hore Axmed Cabdi Muuse runtii waxaan ogahay waan ka marqaati kacayaa inuu ahaa barasaab runtii adkaysi badan. waxaan noqonaynaa xaaladaha ka soo dabaashay inay ahaayeen xaalado aad iyo aad u adag oo duruufo adag uu gobolka kala soo dabaashay. gudoomiyaha cusub waa siyaasi weyn, waa nin aqoon-yahana, waa nin runtii aynu u baahannahay aqoontiisa waayo-aragnimadiisa. intaa kadib waxaa soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag noo soo magacaabay isaga intaasoo hawla kama sheegayo weliba anaa wada shaqayn waan rajeynayaa wada shaqayn doono waan rajeynayaa inuu tilmaantaayo mid laga buuxin doono mid baa ka afeeya in hore loo joogaa ayuu labadii ahmeelo gudaayo dara aniga gaarigaysa wuxuu yidhi yani midnaa gudnaa lagu halasaabayo gaarigana sababaa kaan hayso. sidii la sheegay waxa weeye in la soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub. waxaan leenahay gudoomiye soo dhaweey barasaabka aynu sii sagootinayno maanta in abaalgudo baynu maanta halkan ka ilaaminay. wixii uu qabtayna halkaasaa laga sheegay. kalena ku soo dhawow waan leeyahay waa lagula shaqaynayaa reerka gobolka Sanaag waan leeyahay. gudoomiyihii horena waa sii sagooteeyaa waa laba nin oo reer ceelaf weyna aad iyo aad waxa kulay aniga farxad ii ah reer ceelaf weyn haddaanu nahay waa nala maagi jiray mar haddii maanta reer ceeriga wana ammaanayaan waxaan leeyahay waa noogu dhan tahay. barasaabkii hore aad baan ku salaamayaa waxaan ku leeyahay meel ka khayr badan ilaahay ha hubiyo barasaabka cusubna waxaan leeyahay soo dhawow gudoomiyaha cusubna waan soo dhaweynaynaa. laakiin waxaa lagu xasuusan doonaa marxaladii uu soo maray ee gobolka kala soo baxay ama mid colaadeed ha noqoto ama mid nabadeed ha noqoto ama mid qarameyneed ha noqoto kaalintuu uu ku lahaa reer Sanaag dhammaantood way wada garanay. gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay gudoomiye gobolka ku soo dhawow iskuba cusbin ilaa durhad waa wada joognay. waxaan halkan aan ka sagootiyayaa waan sii baarigayaa barasaabka iyagii hore Axmed Isteber oo ahaa sida laga warramay halkan ama aynu ku naqaanay in badan haddaynu nahay degmada Cerigabo iyo haddaynu nahay gobolka Sanaagba nin ku suntan horumarka gobolka Sanaag. gudoomiyihii hore wuxuu noola shaqayn jiray si hufan haddaanu nahay degmada Garadag runtii si dhow iyo si gaar ah uu noola shaqayn jiray hadday qarameynayd iyo marxaladii la soo maray. Maxamuud Raage Ibrahim isagana waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye markii horena runtii xooggaal u ahaa deegaamada. waxaan markaa ilaahay damkiisa Maxamuud Raage aan u baarigayaa ilaahay xilka cusub inuu maaragteen inuu ku fuudeeyo nin loo baqayo maaha sidaan idin sheegay Sanaag imka way xasilan tahay laakiin horumar bay u baahan tahay. waxa la yiri 20 jir mudug jooga ilaahay uma xil qarin. Axmed Cabdi Muuse shakhsiyadiisa iyo kartidiisa iyo qofnimadiisa iyo dad isku wadkiisa iyo dulqaadkiisaba waa la cadeynaya marag baynu ka wadan. gudoomiyaha cusubna waan soo dhaweynaya waana u ducaynaya ilaahay xilka kugu asturo. gudoomiyaha cusub ee gobolka la soo dhaweynayo aad baan u soo dhaweynayaa. waxyaabaha aan doonaya inaan ka mahadnaqo dee adaaba tegi doono xafiiskayga gobolka waxa jooga shaqaale aad iyo aad u wanaagsan. inantaydii Hinde Yuusuf Xaajiciga waa walaashay
waalidna waanu ahay nin gobolkoo dhan qaali ah baa dhalay oo yuusuf xaaji cigo aa wada garanaysaan waxaad joogta nimco cali oo iyadana inantaydii labaada waxaad joogta jawaahir oo walaashaya waxaa jooga shaqaalo badan oo hablaabaa jooga waxaa jooga siciidheer oo intayadaba markuu doono odaynoo ah markuu doono odaynoo noqda siciidheer aynu joogaabaan malay maxamudo waxaan kuu sheegayaa 4 sanaan gobolka joogay weli hal shaqaale ama bedelin intii aan ugu imina weli kama kaxayn position mid waliba wuxuu joogaa halkaan ugu yimi innaga waxaan doonayaa gaar waxaan ula hadlayaa ama beesha dhexadhaha ama beesha isaaqdhaha war xaggeena cadaalad laga rabaa innaga waa inaynu cadaalad samaynaa dhexdeennana waa inaynu isku cadaalad samaynaa walaalaheenna intay naga maqanna waa inaynu cadaalad samaynaa oo aynu doonnaa oo nidhaahnaa sidee baanu idiin dhayaynaa maxaan samaynaa maxaa lagu wada noolaanayaa 9kii beelood aa sheegteen siday ku wada noolaanayaan taa micnaheedu ma ahan siduu axmed sheegay amniga qaranka iyo difaaca qaranka waa halkiisii sidii axmed halkuu dhigay ligii nabadayntu way dhammaatay qaramayntiina waynu ku guulaysan maanta waa amniyo halkaasaan iska maray anigoo biraabowri gaara gobolka meel aanan tegaynin ma jirto ma kaxaystona staff waxa weeyaan nabad weeye waxa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa idinkaana dhaliyey nabadda hablaha dhaliyey dhalinyarada dhalisay odayada dhaliyey waad iskaayo barbar taagteen shaqadii madaxweynuhu noo soo dhigtay baad nala qabateen waad ku mahadsantihiin wax diidma ama idin samayn waayo hadday idin samaysaan dee waxaniba ma suurta galeen waa laga yaabaa in la yidhaahdo reer hebel baa wax diidan iyo reer hebel baa wax diidan cid wax diiday ma jirto asaanu idinka markaad kacayna waayo dee ficil baad fuliseen haddii wax la diidan yahay waxba ma fuleen waxaa inoo ballanow isku duubni xilalka marba nin baa taagan ninka taagan waxa weeyaan in la isberber taago unbaa lagu wada shaqeeyaa Cabdirasaaq Sugulle Ceeriga